أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي لواءك المعقود وظلك الممدود لواءك المعقود وظلك الممدود وأنت يا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaynu kelmadeennii koobnayd oo ku saabsanayd cirib xumada iyo cawaaqib xumada uu ka kodlo ciddii nebiga cayda adduunyada tan ay la kulmi doonto ayaynu sii wadi doonaa. waana kelmadeennii afraad waxaanay ku saabsan tahay nin la yidhaahdo ibnu qami ah. waa dagaalkii uxud sanadkii 3aad ee hijrada. dagaalkaasi qadhaadhaa oo ahaa dagaal aad iyo aad u dhib badan. haddii aynu kelmadeenna ka hor aynu tilmaamno qaabka dagaalkaasi si kooban, wuxuu ahaa dagaalkii qolada gamuunleyda ah amba qolada waxganta buurtii jabal rumaad halkii karingaabadii amba kaldhowdii uu nebigu saaray ee uu yidhi halkaa ka soo daadegin haddii wax walba dhacaan. markii ay arkeen dagaalka wejigiisii hore iyada oo gaaladii dhabar jeedisay oo muslimiintuna ay caydhsanayaan yaa waxay u qaateen in ay jabeen dagaalkiina dhammaaday. waxay markaa yidhaahdeen alghaniima alghaniima, waa tii ay yidhaahdeen. way ka dareereen. amiirkii rumaadda cabdullaahi ibnu jubayr iyo tiro kooban ayaa halkaa lagaga tegey isagoo leh amar anigu ma qabo inaan halka ka tago, amarkii rasuulka ha jabina. ayay dhaqaaqeen iyagoo leh khaniimada aan ragga la ururino. halkaas waxaa arkay oo isha ku dhiftay abbaanduulihii fardooleyda qurayshta wakhtigaasi khaalid ibnulwaliid oo dhowr jeero hore isku dayey inuu halkaa ka soo dhaco, laakiin indhaha loo geliyey gamuunkii iyo fallaartii iyo warmihii iyo wixii la haystay. dhowr jeeroo hore ayuu holliyey, laakiin waa u suuro geli weyday. marka kan wuxuu arkay tiro kooban oo meeshii taagan. fursaddaasi buu ka faa'iidaystay, halkii buuna ka soo dhacay. tiradii koobnayd ee meesha joogtayna halkii buu ku laayay. xagga dambe ayuu muslimiintii kaga tegey, waxaana ku dhacay 2 aabudh. dagaalkaasi oo isu rogay libtii iyo guushii ay muslimiintu heleen in uu jab isu rogo, taas oo ka dhalatay caasigarowgii ciidanka qayb ka mid ah ay ku caasigaroobeen amarkii rasuulka iyadoo wax lagu tusayey, iyaduba waa wax ku qaadade ayaa halkaa ka dhacay. waa dagaalka aad maqasheene 70-eeyada raggii saxaabadii ajillada ahayd halkaasi ay ku shahiideen oo ku janno doonteen. tiro badanina ay dhaawacantay, bale nebigeenna dhaawacyo fara badan halkaa ay ka soo gaadheen. bal dhaawacyadaasi mid ka mid ah nin qurayshta ka mid ahaa oo kuwa madaxa adag ka mid ahaa oo nebiga aad u dhibay, af iyo adinba dhibay, waxaa la odhan jiray ibnu qami ah. bal hadda ibnu qami ah aan eegno. wejigaasi markuu dagaalku yeeshay oo muslimiintii ay jabeen, waxaaba nebiga ku soo hadhay tiro kooban oo difaacaysa. tiro yar baa ku soo hadhay calayhi salaatu wasalaam. waxaanay gaaladu isku dayday inay nebiga inay goobaan oo xagga iyo xaggaba ay ka maraan. waxaa nebiga hareerihiisa la wadhay oo lagu dilay 7 ka mid ah ansaartii muslimiintii ansaarta ahayd ka mid ah, oo mid waliba isagoo nebiga difaacaya oo naftiisa ku difaacaya halkaa lagu dilay. waxaaba ku soo hadhay nebiga baa la yidhaahdaa tiro sii kooban oo aada u sii yar oo uu ka mid ahaa dalxa ibnu cubaydallah iyo sacad ibnu abi waqaas, raggii ugu dambeeyey oo nebiga difaacayay oo gaashaanka birta ah u noqday nebiga ayay ahaayeen calayhi salaatu wasalaam. waxay ahayd laxdad aad iyo aad u dhib badan. waxay ahayd saacadihii ugu adkaa ee soo martay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid tahay. waxay dhanka kale gaalada u ahayd fursad dahabiya, iyaga oo goobay oo xagga iyo xaggaba ka maray nebiga calayhi salaatu wasalaam, kuna tuuntuunsaday inay dilaan.
hase yeeshee alla wate wehel ma doono gargaarkii ilaahay iyo gurmadkii ilaahay iyo ilaaladii ilaahay ayaa nebiga gaadh ka qabatay wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa ilaalinaya ilaahay baa waardiyeynaya cidi umay suuragal ahayn inay disho nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaana ilaahay sabab uga dhigay saxaabadiisii miiganayd oo ka mid ahaa sacad ibnu abi waqaas iyo talxa ibnu cubaydillah waxaa nebiga ku dhacay dhaawacyo doora wejiga nabar baa kaga dhacay tuurmo ah bohol ay sii qodeen marka hore ayuu nebigu ku dhacay ku hantaaqsamay oo halkaasi kubabka iyo rogaga ayuu ka diirdiirmay calayhi salaatu wasalaam rubaaciyadda rasuulka ayaa la jabiyey calayhi salaatu wasalaam ninka kan aan ka warramayno ibnu qami ah oo fardafuuleen ahaa oo soo qaabilay nebiga isaga oo weliba leh maxamed itusa waqa aanan nabadgelin maanta hadduu nabad galo dadka nebiga difaacayay waxaa ka mid ahayd haweeney nusayba bintu kacab umu camaara ayaa ka mid ahayd oo ka hor tagtay dhowr nabar amba dhowr ku dhifasho oo seef ah ayuu ku dhiftay qarqarka amba halkaasi garabka ah ayuu kaga dhiftay rag iyo dumarba waa la difaacayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu dambayntii wuu soo gaadhay nebigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam 2 darbadood ayuu kaga dhiftay madaxa hase yeeshee nebigu wuu xusitay koofiyad bir ah 2 birood oo xalaqaadkii birta ahayd ee koofiyadda ayaa hoos u galay sala allahu calayhi wasalam isaga oo weliba leh igaho oo iga qabso waxaan ahay ibnu qami ah markuu ku dhifanayay nebiga calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa habaaray maalintaa iyada ah haddaba aan u nimaadno ninka kan noloshiisii muxuu ku dhammaystay dagaalkii waa iska dhammaaday nebigiina meeshii laguma diline waa ilaahay waa ka badbaadiyey waa u guryo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhaawacyo badan qaba oo wejiga iyo madaxa iyo dhinac walba isagoo ka qaba sala allahu calayhi wasalam haddaba bal aan eegno cadowgii ilaahay ibnu qami ah xaalkiisa muxuu ku dambeeyey ibnu qami ah waxa uu ku laabtay baadiyihii nin reer baadiye ah buu ahaayo xoolihiisii buu dib ugu laabtay maalinun maalmaha ka mid ah isagoo jirta adhigiisii meel buuro ah isaga oo ku daajinaya yaa waxaa helay oo ilaahay ku salliday orgi ka mid a adhigiisii waxaa iskula soo daayey oo ku durduriyey orgi weyn waa herdiyey wuxuu ka tuuray jar meel laaga oo kale ah halkaasii buu ka shalwaday sida dhagax uga shalwaday dhulkana wuxuu gaadhay isagoo googo-an oo falfalliiqmay oo dhagaxba in la hadhay kaasina waxaa xaalkiisu ku dambeeyey inuu sidaa foosha xun u dhinto laakiin ha iloobin ayadoo aan kelmadaheennii hore mid ka mida soo marnay ayada oo libaaxa uu noqday aar nebi oo nebiga u hiiliyey marka kana waxaan haynaa iyadoo orgi xayawaan nimcoleyda ka mid ah oo xoolahan dhaqanno ah oon lagu aqoonba dhibaato inuu geysto in ilaahay uu ku salliday iyaduba waa cibaaro iyo wax ku qaadade waa aar nebi iyadoo orgi nebiga u hiiliyey oo kaa nebiga af iyo adinba dhibay oo dhibaatadiisii ayba gaadhay inuu nebiga uu dhiig ka shubo dhiiggii daahirka ahaa uu ka shubo nebiga waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku salliday orgigaas baana nafta ka qaaday sidaasi ayuu ku nihaayeystay amba uu ku dhammaystay noloshiisii ibnu qami ah waa kelmadeennii afraad halkaas ayaan ka sii wadi doonaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo ogolaado halkaas ay noo joogto
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي لواء